miyaanaad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaamo la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaa yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yawma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacayaa adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanaya nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u diraya laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee sii hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannaha ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'a walamru yawmaydin lilah yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim yawma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna abii waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi miyaad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hammigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jira iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa middaan ku jira ay kala caddayn bay tidhi jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha iyo caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaa ku jira ayaa ii caddayn bay tidhi waa raabica qofka meel u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaat aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada u dhib yaraatay raaxadii adduunyada ifka u soo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa innaka mayit jibriil baa u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta unbaa tee qorshaa ku darso wacmal maa shi'ta fa innaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa innaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adigay ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doonee caalamkana ku nool lahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysta caalamkana adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysta caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamulbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatun min riyaadi aljanna wa ima xufratun min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonayaa sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horreeya hadduu qofku halkaa ku nabadgalo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhammeeyey suuratu lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilaahay waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu maraya ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen
ina yaro shaab u arkay oo salaatul leyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhageystay yarkii yara markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin mashuu dhageystay cumar markuu maraya yarkii yara inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn سيدنا عبد الرحمن بن عوف أي الله كان عنتي سجى صومن مرقاسو قرآن كيبو كلافوري وقبل الفطور ويان قرآن كيبو كلافوري مرقاسو أخريي إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما طعام كأهل النار كآيات كور رميسا آيات أمركو تابتي سيدنا عبد الرحمن أوهي إلا ما لنتا وافرك رواي سيدي بقول سعرامين كي قاجو نبي عليه الصلاة والسلام حلقات كيسي كمدا أيو النبي صلى الله عليه وسلم كو أخري آيات داس وحي جيبا كو سودقي إسلام رقيبا أصحابته وحي قد بيي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كو إلهي النبي الرميو دولك إلهي النبي الرميو لفيني الكينا نارتك لبح صدى با إلهي قاجك لبح صدى لمورا قاجا لغا سوياعي دبات سكريا لغا سوياعي toban dhibaato maanta faraha la galo la laami kar leeyahay qo anfusakum wa ahlikum nara mufassiriintu waxay ku fasireen lafiinana diinta barta ubadkiina yeelkiina diinta baraba ilaahay aayada diinta lagaga badbaadaya naarta aayada markay soo degtay waquduha an-nas wal hijara markuu nabigu aayada ku akhriyay in xabashiga nabiga hor fadhiyay majliskiisa lilma ayuu sii daadiyay uu ooyay oo intiisii buu saysan kari waayay ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam يا محمد كان هرساد كوي يوايو مرقاسول يا جبريل وادون ريح بشا واهل الخير ومؤمنة آيات داسا كو اخريو واتكسن كري وايبولي مرقاسول يا جبريل يا محمد إلهي وحيري وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة إلهي بالع شرفت إذا وين إذا عرشك يقصر أيا كدارتي أدومها يقا كمدا الدويدة دوشيدة مويو عبصديد لما ooyo hadii la helase maalinka la qatay la qaaway qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaaba ilaahay lixdan sano ayuu ku dhamaysanaya taacada ilaahay iyo cabsidiisa iyo khawf iyo khashiyad iyo bukaa abaalgudkiisu wuxuu noqonayaa maalinka la qatay la qaaway ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigay oo qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fadadkii hore قلوبتوده مركو افتينكو قال نور الإيمان هي نور العلم هي نور القرآن هي نور الهداية مركي أفرتها نور قلبي وقوه الساميي آخر دي باو عداتي قرآن كي فهمين وحي جيبي فهمين عمر يا أبو بكر مركو النبي انتقال عليه الصلاة والسلام أيي هذين أبو بكر باكود عمرو أم أيمن النوغي هنبوقنا سيدي النبي بقو زيارنا يهنو زيارنا النوغي مركاسو ويسا صور راعين أم أيمن بوي مادين markaasuu mar ali markii aragtay Abu Bakar iyo Umar oo wada socda Ayman weel ilmaysay markaasuu Umar Abu Bakar baa ku yiri yaa Ayman miyana dogay nabiga Ilaahay agtii inuu khayr badan tahay man nabiga waan ugu xasuusanaysaa macnuhu weeyaan waxay tiri waan ogahay nabi Maxamed Allah agtii inuu khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga iimanay baa naga go'ay bay tiri aji bal ummadu sidii quraanka ugu xidhnaado fiirso dhageyso وفهم قبل ولا شيء مسلمة داي زمن كادتك سيدي قرآنك وقول حدنايين هيك رقي دمر ما أنت محل وقول حدنيا محل وقول حدنيا ما أنت إيمانك وامحي تكذيب بالنظر وتصديق بالخبر وحي نفع الشعار كي صدم بينه وح صمد كيم دي ورنا الرماء هذا هو الإيمان قرآن كي حديث كالرماء وركوغنا قاضو وحي لبدا كبح سنة هيالين معايا لوابين وحبك مصعونيا لبدا الصنبا الدبا لبدا وركوغنا القادتنا فرد بيكو قطع dadkii markay warka qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay boolalayaa maxaa la isku daalin ba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bila masquula ma dhici karto
laakiin musqusha la dhex seexan maayo markii xaaja ku qabato baad gali waad ka soo bixi haddii uu yiraahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yiraahdo musqusha dhex seexanaya maxaa la odhanayaa adduunyadu waa aynka haddii uu yiraahdo qofku tan baan aqaanaa tii dambe ma aqaanay qorshayga way ka baxday tan baan aqaanaa haddii yiraahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ila dabiibu baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga la musqusha uu isticmaalo adduunyada uu isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin taacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي ارزاقدو وانت الهي كو قدرين ويان wax ziyada ma helaysid arsaaqadu waa inta ilaahay ku qadaray caalamkan waa caalam yar marka loo eego caalamka qabriguna marka loo eego caalamka qiyaamaha uu yaraanaya caalamka qiyaamaha marka loo eego caalamul janna wa naarna caalamkaasna uu yaraanaya isna laakiin maxaa lagu badbaadaya waxa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي إني شاعر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا أد إيمانيسي وحيه إذا كنا الشيء أدو أويا دتكنا أكتر لا فرحسيهين عنو قمركو دلنا يو بغاق وقيلي يا يسقو لكن دتكو فرحسيهين فاحفظ لنفسك naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalsoo iimaanka ilaalsoo islaamnimada ilaalsoo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aad adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tagaa isagoo faraxsan ninna waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday ninna dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya bagu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay bagu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waad dhiman adduunyada ma dhammaystirmayso لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان إن آدم هدي لسيه تك ذهب وصعد بو نبي يقولي كل بعض بو جعلان بو يري هدي كل بعض لسينا قصد حاد بو جعلان بو يري إن آدم أفقي سوحك لما بو حيانه قبرك مركا لقلي عيدا لقو قرون بو درقاب رسولك يري للدميد لقى ما درقو ما درقيس حايا لو قمت سلق الانبا شهوات وحي بني آدم كوبا هاي الدنيا لقوا ما دميسترين دار باجرت لقوا دميستر وحي نفته باهنتحي هذا الصباح دي بلو فيرسو مقالة دا ضوطون كمالها ناتر هذا سانتر فيل بنرانك وسط المدينة وضد هانويجي وسعت مقالة دا برتمهيجا أيا الصباح دي مارك تاني الرشا والزحمة دا هذا سرادتك هالكيت جيسان وحي كلها يان واشغتك قلبتنا وضدك كلا يا الزحمة وعديريا هذا ترى هالكيت جيسان وعقلية والراحة تجيا قرية يجيبها تجيا ريرك يجي ورد يجيبها تجيا ماشى الشغادنا واميل جونية ماشى الراحتنا واميل جونية الدنيا ماشي اللي قول راح يسني معها هلك الشغال لو يمدي ماشى الراحة والله نقندونا إذا دخل أهل الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة أبو رسولك يري مركي الجنة ذا أفر شيء الله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلا بواحد ليده النلل أدي مشد بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمت أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالورنا يا أين الدنيا
حديث النبي كشيك ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود درجير بالنبي مالك كشيكي وحيري وأنن كالصباح يا جنة بالنبي يقول جنة كالصباح يا غرغورة بك كالصباح يا الباب كي جنة إلهي بهر من يا إلهي بهرنا يا عبدي أدون كيجيو أرض الجنة قلواتاس الباب كي جنة إيمان يا إني يسيب الله قد يا جنة إني بحسنتي مركز النقطة يا رب جنة تك قل يقول تري ويبحدا مالا كده ما هيست مركز سلا أرضنا يا مبحدا أرض النقطة قل هذا هو إيمان يا مر لبعض مر صدحات مركز أفراد إلهي أرضنا يا أرض الجنة قل أو تك وقل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله راه كيلغاس الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحة أرلد ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يالين الدنيا محايا لا مركاسو أردنا يا أتسخر بي إلى ما يقول دال إسا أو تضحك بي مسوادك وقصل صادق أبو بكر كيه مسكحدي سي كدا دحين arrintaas adduunyadii iyo 10 keed baa lagu sii soco Imam Qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalka oo dhan buu soo maraa gobolada tuulooyinka districtyada meel kasto soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yiri halkan uu ka bilaabaya jannadiisi halkan uu ka bilaabaya ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu marna mar labaadisha ku qaban maaye safarka wuxuu ka qaadanayaa 1000 sanadood imisa sano 1000 sanadood fayaati wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagaya xawra lahaynti siba ka hor imanaysa tanduru ilayhi wa yanduru ilayha ibn Abbas way eegi eegmadu kaliya ayaa qaadanaysa buu 40 sanadood imsa sanad dalka joogtaan النظر فقط تعانقه ويعانقها وكبوديا ويكسو بوديسا ويسكو دغيان والمعانقه قدر 40 سنه ابو عبد الله بن عباس معانقته كليه waxay saysanayaan 40 sanadood oo kale وصعنايا مخسيقي cuntada ay taalay buu fadhiisanaya 700 sano cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cunaa 700 sano أين الدنيا؟ حيث يا ديدو حور العين تواكشنا كي لهينا كله هوانكم ونلا فديان بيانكم ونلا دغيسنا محاضرة حقوقنا وان شيغنا عجيب نعمة داسا إلهي دادك مؤمنين تو دياريه يطوف عليه 10,000 خادم النبي يقول نكا جنة قليا دادك جنة قليا وقود جغير وقود فقير سن ugu mazil faqir lama dhihi kare ugu jagayar waxa dushiisa dawaafaya buu nabigu yiri 10 kun oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kala arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kala masido guriyaha jannada buu nabigu yiri sida guriyaha adduunyada ma ahine sidaas ay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yiri asxaabtu way yaabeen yaa rasuulaha guriyaha sideen u galaynaa wuxuu yiri sida shimbiraha u duulaysan u galaysaan buu yiri cuntada cunaysaan biyaha cabaysaan sindhay kaadimina noqoni maayaan cuntada waxa isku bedelaysaa daacadaas oo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaas oo isagoo miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calal xuma ma jirto oo qabyaalad ma jirto qabyaalad halka ma socon ma jirayso ونزعنا ما في صدورهم من غل الباب الجنة مركي جوغان لبا الشيبة ولا قد ظهيريا هدي جيركوغين الجنة انتي قلين بالبدليا لابتو ذا وحي كجري غل اي حسد يدبعات دي حنيد يبغضقي يوحينا الكاس لك قربيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وحكلا مغلي مايان سلاما بي مغليان والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم نزلا من غفور سلام قولا من رب الرحيم نحدو دنا والسلام ملائكتنا والسلام حق السلام كنا سلام باكي منيس سلامتا كي منيسا سلامتا وحي كتمي دا لورانيا
من الحي الذي لا يموت إلى العبد الذي لا يموت دينتي إيمانك إسلام نمضو وحي بني آدم كالسينيسا صفات إلهي كمدا الأبد صفة الأبد يلنا يقفك بني آدم مركو جنة قالوا من الحي الذي لا يموت وحال أورنا يا السلامتني وحي كتمدي إلهي إنه لهي عن دمنين وحي أولئمتي أدونك إلهي يسونا عن دمنين هديته لي نعمة دا إلهي نو دياريي نعمة دا وحا كويلين وان هيسانا إيمان كان كويلينا سلام نمدا كويلينا هوين كنا إلهي وأون نعميي والنبي قايا عليه الصلاة والسلام إذا المرأة إذا أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة رقوا بالليلي وحيابها الجنة رقا لو قبل لنقاضي وابلا أتكيي لكن دمرك وحيابها الجنة كوكلين وابا وحس كدبير ناكتك قبل دمتابو النبي قولي هوين إذا دمت يدو ننكيكو راضي كيهي جنة يقشبو رسولك يولي الرسول في حديث وحا وكيري دتك الدين دتك الصلاة كذا الباب بي جنة كليهين ليدا باب الصلاة دتك الصونك اللازمة الباب بي كليهين باب الريان ليدا دتك الصدقات بحية الباب بي كليهين باب الصدقة ليدا دتك الجهاد كوددالا الباب بي كليهين باب الجهاد ليدا أبو بكر بايري بأبي أنت وأمي يا رسول الله هو يدي يا بايبا وكوكو في دين وكوكو فراني سيديد الباب الجنة لا دهي ننكقل يالله يدي مجرابو يدي مركز النبي يقول نعم وأرجو أن تكون منهم ها ويجرى رج سديد الباب الجنة با لوغا يري الأورانيو كان كسوغل ويجرى رجع أين أتكمل تايب الرجيم الرسول كده أبو بكر كلي كقلي ما يسديد الباب وحلق ليس قبض الصالحة إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها حتى هوين يدم النبي يقولي شنت وقتنا تكتو بشر رمضان أي صونتو فرجك جن حمانتك كدور صتو نكى جن أي أضيعدو سديد الباب الجنة أي لا هاي أي كيد دون تكجس أبو رسولك يقولي سديد الباب الجنة لا هاي أي كيد دون تكجس أبو رسولك يقولي hadday gabadha laga helo afarta amal bisha Ramadaan oo soonto shanta waqti oo ilaaliso xumaanto ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega way adeecdo afarta gabadha laga helo buu rasuulku yiri sideeda albaab ee jannadu ay leedahay ayay Abu Bakar daba joogsan la gali doonta qiyaamaha wala weydiiyay nabiga saxaab gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka mu'minaadka ay xurul aynta mid ka fadli badan baa lagu yiri عائشة ويديس والنبي يقولي قبل مؤمنة أي حور العين تكفل بدن بيقولي وحيترم حاك كفل بدني وابحور العين وإلهي بسمي النور بالله سميه وحول النبي يقولي بصلاتهن وصيامهن وطاعة أزواجهن وحيك كفل بتين حور العين تو قهوينك مؤمناتكو حور العين تو وحيك كفل بتين صونك أي صوم أيام صلاة أي تكن أيام يرجعوا يا ضيعيان fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayna dhigtay ninba nabiga u yimid oo yiri dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo raamba wuxuu nabigu yiri hooyada hadana hooyada hadana hooyada hadana aabaha buu rasuulku yiri dhageyso gabadhayda muslimaday diinta islaamku hoos kuma dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagi korba u qaaday kor سيدنا عبد الله بن عمر بن يمدي لعل هذا الحديث هو مرفوع ويان عبد الله بن عمر بوي مدين مركا سوريا ابن عمر هو يدي دشي ayaan degtayda xashka ku keenay intaas soo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyay carafa ayaan geeyay xaqeegi ma guday mise ma gudin wuxuu ku yiri xaqeegi kugu lahaydood guday iska daaye maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinka kaliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygi ma soo celin buu ka yiri xaqiina waleedihin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisay adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baad tahay waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan u raaliga kaga noqday wadadoodii maryam bint imraan ku dayo asiya bint mazahim ku dayo faaduma bint muhammad ku dayo khadija bint khuwaylad ku dayo dadkaas adduunkan iyo aakhira kulli baanay sida waxa uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nabigu yiri afartaasna waa maxay waa maryam waa nabi ciise hooyadii waa asiya weeyaan waa asiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka beedka guriga ninka rabbinimada sheegtay
guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday asiya faadumana waa ina muxamado tacab iyo rafaad waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii ugu horreeyay diinta islaamka soo galay waa khadiija qofkii ugu horreeyay oo diinta islaamka dhaqaale ku bixiyay khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiyay lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nabiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tiri gabadh xigmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhallabay tiri subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo boqorradana annaka unbaa dhalla imaamyadana annaka unbaa dhalla nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi saacaddaan gaadhi malaha allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmaddaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal oo dalkanaan imannay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka beddelin ittaqi allaaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa innakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wassalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usraddoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan mu'minka dhabta ma badilmay waxbuu badilaa lama saameeye waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegey khilaafadii dawlatul amawiya ardul islaam bay ka tegeen indoneesiya iyo maleesiya u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina masar buu u diray 8 kun baa dalkii oo dhan badishay mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay إعلاء كلمة الله إحياء الدين في العالم نشر النعمة مؤمنكم مركو كدغا هدف كيسا إنو إسلام نمدن قادو عالم كغارسيو إنو نعمدن أمدا ugu yeedho إنو دينتن عالمka u meel walba u maro hadafka markuu muslimku hadaf ka dhigto uu safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhaafo ma badilmay isaga wax badilaya lama saameynay isaga wax saameynaya takaliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeenu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqay rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegey nebigu calayhi salaatu wassalaam manhajka uu kaga tegey waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabarh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi waalcamal waaldacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wassalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaanay adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkanaa joogno lama oqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa haada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaanu noqonayaa lianna alarda intahat lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radiallahu canhu ree madiina ayuu haa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayuub alansaari ree madiina ayuu haa istaanbuul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuu haa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhaafiqi ree dimashq buu haa faraans buu ku aasan yahay bilaal ree makuu haa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhowayn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconno iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeenna bedelnaa dalka niyaddaan ku imannay waa inaan bedelnaa
وإلا أديك الخطر باكوجرنا نيدين وان بدلينا محانو بدلينا إن أندل كان جوجنو لكن أن دين تيلا يكشقينو ونكبل أن الشغادة دين تا مسلمين تيوردل كان تمدمي أو دات كي يمددل كان أين هم أنت انت سوق ليس مسكيتي أكو فرحين زيارات كبح جولة دبح راع جماعة ضد دي بده وبح واديابي دون تاي تستغرب هي أوصى بحايا إنك هالك النبي قال عليه الصلاة والسلام من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا أبو النبي يقول فليس منهم نيجا مسلمين تدبات ضد كول ولي كم رجون نجا من محبود عنك أما مسلمين تبا كم من مح dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysta waa maxay buuxdu aan diin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadii ilaahay oo laga fogaado dhibaatada ka weyn Allah ina fahamsi daniyada ma badala hada de balu xilan yadi waan badalo gacanta taag mustaacidiin hada oday baa bari nagu yiri wacdigiina soo macaan yahay bixitaanka on maad ka reebtaan abu yiri كل مال هو بهن هذا الوح مكثرة يا سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن الذي العيش في النصب إني رأيت ركوض الماء يفسده إن صال طابا وإن لم يجري لم يطبي الأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسهم لولا القوس لم يصب بالإمام الشافعي لباح محول لباح كل نقطة كين تسول لباح كوياي مسلم كوحو قيمة كويا لنا أمركو كشغي شغادة دينته هدي بيهو فريستان وحانو قادي بودي إمام الشافعي بيهو إني حمان أيام هدي السعودان إني بيهو طاهريين عدك لنا يطهرين أيام أمدا السعود كي قيمة كل هذا هولا ليال فإن شاء الله نيودة إنات سعودان زيارة دتك سعودة النبي محمد با سعودي عليه الصلاة والسلام خير من دب على وجه الأرض وإن عبد الله ويان ما كفل بدنت يدقو وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وما هي كان سوق وريجي النبي قال يري وريجي هل كي جوغان ودتك النبي قوتكي دتك والله بويان مقبلين يا مدبرين دد خيرك جعل يدد خيرك ان جعلين يا ما بدن سغاشن بقولكي سغاشن ما سو غلين مساجد دعوه waa maxay dacwada masaajidka laga jeedinayna waa dacwatu raaqibiin baa la yiraahdaa dacwada dibadda la tagayna waa dacwatu ghayr raaqibiin baa la yiraahdaa labadana waa loo baahan yahay barkada biyaha hadii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya hadii dadka dacwada loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhamaan way dhoofaya mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xilmo ku soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda ku soo xidh culimadii masaajidda marka jamaacad wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxa isku xidhayaan iyo culimada masaajidda faham wala marka Allah ina waafajiyo Allah ina nagu anfaco la jamaacaduna bari weyn la joogaan soo ziyaarta usbuuc kadibna Canada inuu gudbaan baa laga yaabaa wana nii soo noqon doonaa wixii diyaara inay la martidu xaq bay leedahay ma tahay samaa ya da martida in la yar dhaweeyna xaq way u leedahay maxaad u dhaweey laadiin اسكن نغضا إن شاء الله تعالى وأن لا جوغنا الله خيرك نوافجيو وصلى الله على سيدنا محمد